بروفيسورada inay soo fadhiistaan marka waxaynu ku bilaabi doonaa barnaamijka presentation ama bandhig uu sameyn doono Dr. Awil hadii aan idin baro Dr. ku waxa weeyaan Awil Xaashiba la yiraahdaa wuxuu caan ku yahay asaasi English ama essentialist-ka dictionary-ga booktan dictionary-ga ee aynu qof walba wax laga yaabo gurigiisa yaalo waa ninka qoray intaana luqadda English-ka u gelin luqadda Carabigu aniga hadda Carabka ku dhuftay waa luqad aad iyo aad muhiim noogu ah inkasta laakiin caawa waxaanu diiradda saari doonaa luqadda English-ka luqadda Carabigu maalin kale ayay u baahan doontaa hadii la yiraahdo maxaa luqadda English-ka muhiim ka dhigay ya luqadda English-ka shan qof oo meel taagan adduunka meel kasta aad China aad Africa aad Arabta aad shan qof oo kasta oo meel taagan hal qof oo kamid ah wuxuu ku hadlaa luqadda English ya taasoo ku tusaysaa hadaad socotid oo adduunka ku safartid in dad aad helaysid qof English kula fahma aad helaysid marka muhiimadda luqadda English-ka halkaas waad ka arki kartaa sabab kale luqadda English-ku waa luqadda science-ka marka cilmi baarista iyo dadku inay ku qoraan luqadda English-ka ayaa aad uga badan dadku luqadaha ay iyagu u dhasheen in lagu qoro waa sababta labaad sababta saddexaad waa mid aad wada ogtihiin oo ah 50% iyo in ka badan information-ka internet-ka ku jira waxa weeyaan luqadda English-ka waa luqadda business-ka iyo media su'aashan siinayo Professor Ahmed Dr. Musa Jama waxay oranaysaa muhiimadda afka Ingiriisigu afka hooyo iyo ama luqadda ama afka Ingiriiska xiriirka ka dhaxeeya ayuu ka jawaabi doonaa haddana markale ku celiyo waa afka hooyo iyo xiriirka ka dhaxeeya barashada afafka qalaad Dr. Jama ka soo dhaw waxaan doonayaa 5 daqiiqo la siiyay ethno mathematics-ka ku sharxi maayo marka waxaan u gelayaa su'aasha la weydiiyay laakiin waxaan ka hormarinayaa inaan runtii u mahadnaqo Telesom Company waxaan ugu mahadnaqo maaha inay barnaamijkan inoo soo bandhigeen oo ah dabcan ay ku jirto waa company macaash sameeya shaqaynaya oo wax wanaagsan ummadda ku soo celinaya marka taa ugu mahadnaqayo laakiin waxaan ugu mahadnaqayaa fikirka wanaagsan ah in la isu keeno dadkii aqoonta diinta iyo timaadiga iyo dadkii isticmaaliyay barnaamijka iyo intii go'aanka gaadhaysay ee dawladdii iyo wasaaraddii arrimahan u qaabilsanayd in meel la isugu keeno laga wada hadlo la isweydiiyo waxa wanaagsan soo kordhay iyo sidii loo sii wanaajin lahaa waa arrin aad u caafimaad qaba arrin doodana ka soo baxda kambaniga ay dib ugu noqonayso oo faa'iidadiisa dib ugu noqonayso in dadka la soo marti qaadayna ay yihiin dadkii aqoonta u lahaa waxan marka arrinka aad baan runtii ugu mahadcelinayaa su'aasha la weydiiyay haddaan u soo noqdo ee ah arrinka ku saabsan afka hooyo iyo afafka kale barashadooda xiriir ka dhaxeeya waa arrin muddo far badan la baaray oo maaha arrin cusub aynu caawa halkan ku ikhtiraacayna hadalkeeda afka hooyo baynu isla qeexaynaa waxay tahay afka hooyo maaha afka hooyadu ku hadasho ee hooyadaa afkay ku hadasho maaha qeexda rasmiga ee la siiyaa marka xaqa aqoonta laga hadlayo afka hooyo waxa weeyaan afka ilmuhu bayadu ku koraayo lagaga hadlo Professor Mubarak su'aashiisa waxa oranaysaa muhiimadda afka Ingiriisigu ama luqadda Ingiriisigu ay u leedahay ardayda jaamacadaha waxaan jeclaan lahaa inuu ku dul istaago su'aasha bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn waxaan salaamayaa runtii aqoonyahanka halkan fadhiya iyo marti sharafka iyo wasiirka runtii technology isgaarsiinta kolley runtii anu waxaan jecelahay dhiirigelinta luqadda af carabida oo number 1 anu waxaan ku dhiirigeliyaa dadka runtii in luqadda carabida la barto waana taadun iyo aakhirada lagu guuleysanayo waa taa haddaan Ingiriisiga u yimaado kolley su'aasha Dr. Awil baa aad uga joogay muhiimadda luqadda Ingiriisiga ay leedahay laakiinse waxaan ognahay luqadda Ingiriisiga marka laga hadlayo dad gaaraya 400 milyan baa ku hadla 53 wadan in ka badan baa luqadda Ingiriisigu ay u tahay luqad rasmi ah oo tahay bale waa luqadda labaad ee adduunka marka Chinese-ka laga tago waa luqadda aqoontu ay ku qoran tahay hadday noqoto research iyo hadday papers noqoto hadday noqoto muxuu ahaay buugaag noqoto waa luqadda runtii jaamacaadka caalamka lambar 1 ay shardi u tahay in lagu aqbalo luqadda ayna taqaano
waa luqadda maanta kambaniyada caalamiga iyo meel kastaba shardi ay tahay inaad barato marka waa luqad runtii aan isleeyahay qof kasta wuu u baahanya laakiinse qodobkan ragga dul istaagaa waxay tahay luqadan mashkilad baa inaga haysata dalkeena markaynu eegno ardayda jaamacadaha markaynu eegno mushkilad weyn baa ka haysataa 3 qodob baan kusoo ururinaya mushkiladda haysata ardayda marka luqadda ingiriiska loo imaado kow waxa weeyaan jaamacaadka iyo ardayda markaynu eegno runtii committed ma aha luqadooda inay bartaan serious kamaha ardaydu luqadan inay bartaan qodobka labaad mushkiladdu waxay tahay environmentiga jaamacaadka luqadda laga hadla maaha english maaha macallinku luqadda ku hadla wax ku sharxaa english maaha marka af soomaali baa galaasaadka economics business engineer waxaa doonta dhe af soomaali baa lagu sharxaa